فرضا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وحرجينا إن هذا أنت وقتي هذا أصعده إن أي سوقلن أنت للنت أنت كان إن شاء الله تعالى أنتو برنامج كصعده أي كسوق يبقى دونا اليوم إن شاء الله تعالى marka waxaan sameeynaa barnaamijkeena si bilaabeynaa waxaan ku bilaabeynaa barnaamij mawduuciisa oo sida aad u soo aragteen scholarshipka India iyo sidii macluumaad la xiriiro barnaamijku wuxuu isugu jiri doonaa muxuu ahaay application processka waxyaabaha qofku muxuu ahaay benefitskiisa iyo in general overviews isugu jiri doonaa insha Allah taala waxaan ku horumareynaa speaker ugu horeeyo oo aan fursad u yeelan doono insha Allah taala inuu khibradiisa iyo cilmigiisa nooga faa'iideeyo oo la xiriiro scholarshipkan oo ay dhalinyarada baahi badan u qabaan wuxuu noqonayaa Cabdikariim ku soo dhawow speakerka Amaiga insha Allah taala the floor is yours بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقعي هو عبدالكريم إسماعيل عبدي وحنا أرضي وحكبرت دلك إنديا scholarship ICCR كنت دلك إنديا سنة مركوها لابد يكون لبعتان صدح دي ماستر ديجري waxaan jeclaystay barnaamijkan maadaama markii aan soo xireynaynay iyo markaan soo helaynay baan jeclaan fara badan kala kulannay in ardayda dambe ee Soomaalida ama intii aan garan karno ama gaari karno ee barnaamijkaas insha Allah ka faa'iideysan doonta ama nasiibka u yeelan doonta inaysan marin dhibkii anagu aan ka marnay dhibkaas isugu jira xereynta dalbashada fiisaha tigirka imaanshaha Hindiya jaamacadaha waxyaabahaas oo dhan waa challenge-yo aan soo marnay marka waxaan door bidnay inaan mataqaanaa bal caqabada fududeyno hadaan isuulin karin waxaan malaynayaa codkayga si fiican loo maqlo haddii codkaygu gaaban yahay ama idin si fiican maqlo insha Allah hoos ayay igu keeni kartaan ama reactionka ayaa kasoo bixin kartaan okay Abdullahi kusoo jawaabay marka scholarshipkan Cabdikhaaliq waxaan ka codsanayaa inuu slide-ka noo saaro weli slide-kii dabcan ma muuqdo scholarshipkan magaciisa waxaa la dhahaa ICCR scholarship ومid ka mid ah scholarship-yada ugu ballaaran ee dawladda Hindiya bixiso dabcan dawladda Hindiya dadku inta badan scholarship-yada ee Europe Mareykan Asia sida China xog badan baa laga helaa laakiin scholarship-ka India markaan qiimeyn badan sameynay
xog badan Soomaalidu kama hayso waxaana keenaysa waan filayaa dadka ku guuleysta oo aad u kooban ama dadka soo apply gareeya Soomaalida markii loo barbar dhigo Afrikaanta, Eeshiyaanka iyo dowladaha kale oo aad u kooban taasi waxay keentay ardayda Soomaalida in ay aad ugu dulman yihiin scholarship-kan ama numberkii la rabay inay soo helaan aysan soo helin marka waxaan go'aansanay sanadkan insha Allah ardayda ugu badan ee scholarship-kan aan u xiran karno ama mataqaana aan ka caawin karno xogta siin karno insha Allah inaan siino dhalinyarada barnaamijka kala qayb qaadanaysa anigoo Cabdikariin Cabdikhaliq oo xiriiriya iyo Cabdirashiid oo isna speakerka labaad oo qaybta dambe barnaamijkan ugu qoran saddexdayadu waxaan nahay ardaydii ku soo guuleystay barnaamijkaas ICCR oo dhammaan duruufihii barnaamijkaas soo wada maray ama processkii soo wada maray marka waxaan filayaa kolley markii su'aalihiina aan dhageysano annaguna waxaan hayno xog idiin soo gudbino insha Allah inay wax idin anfaca aad meesha ka qaadan doontaan oo shidaal idin noqda baan rajaynaynaa insha Allah hadduu eebba idmo scholarship-kan sida ku qoran shaashada ICCR scholarship baa lahaa sanadkan wuxuu furmay bishii February 20-keedii uu furmay wuxuuna dhici doonaa bisha April bisha nagu soo aadan 30-keeda buu dhici doonaa ama deadline-ku ku xiran yahay markii la gaaro bisha April waxay u badan tahay in scholarship saa ku xirmi doono oo aadan lagu ogolaan doono inaad mar labaad soo apply gareysid marka qaarkood waxa dhacday ilaa May in mar labaad dib loo furo laakiin wax lagu xisaabtami karo ma aha Khalid waxa ka codsanayaa inuu slide-ka ku xiga u gudbo ICCR scholarship waa scholarship faa'iidooyin badan leh waana full scholarship oo sida aad ku arki doontaan slide-yada dambe waxyaabo badan baa lagu qabaa oo benefits ama faa'iidooyin ah buu leeyahay scholarship-kan sidiisaba waxa loo soo gaabiyay ICCR Indian Council for Cultural Relations scholarship loogu talagalay isdhexgalka Hindiya iyo caalamka kale scholarship-kan waxa loogu talagalay cultural exchange ama in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dawladda India iyo dawladaha kale ee caalamka hadday noqdaan dawladaha qaaradda Afrika oo dawladaha ugu badan oo barnaamijkan ka faa'iideysta iyo hadday noqdaan dawladaha Asia sida Bangladesh, Bhutan, dawlado badan Afghanistan, arday badan oo Asiana dawladaha Carabta sida Oman, Yemen, dawladahaas oo dhan way soo xirayaan wayna soo helaan scholarship-ka scholarship-kan waxa la siiyaa sanad walba arday gaaraysa total markii la isku daro arday gaaraysa 3,000 oo arday baa la siiyaa dhammaan dawladaha 180 dawladood bay isugu jiraan 3,000 oo arday 180 dawladood waxa kamid ah dawladdeena Soomaaliya waxaan u maleynayaa dawladda ugu yar marka lambar ahaan la dhaho way jiri karaan dawlado ka yar laakiin markii la yiraahdo barbar dhigo masalan dawladaha sida Ethiopia, Kenya, Djibouti dawladaha East Africa aan isla nahay numberka ay soo helaan aad buu u badan yahay waxa laga yaabaa Djibouti kaliya sanadkii in la soo qaato arday 80 arday ama 100 arday gaaraysa in laga qaato scholarship-ka halka Soomaaliya laga qaato 18 marka taa waxay ku tusinaysaa Soomaaliya dhankeeda in problem ka jiro ama mataqaanaa aysan yani arday badan oo Soomaaliya barnaamijkan soo codsan barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay multiple schemes yani qaybo fara badan buu ka kooban yahay qaybta inuu ka tirsanahay Soomaali ahaan oo qaybta la dhaho Africa scheme marka xireynaysid ama marka aad fiisaha dalbanaysid qaybta Africa ama qoondada Africa baynu galeynaa oo Africa scheme baa la dhahaa Asia iyana waxay leedahay qaybo gooniya Carabaha iyo mataqaanaa dawladaha kalena waxay leeyihiin scheme u gooniya ilaa waxaan u maleynayaa 18 scheme baa jira oo kala duwan dawladda Hindiya ayaa barnaamijkan propose gareynaysa ama fan gareynaysa waliba qaybteeda culturalka hidaha iyo dhaqanka maadaama ay dawladda Hindiya ay rabto in ay dadka Afrikaanka ama dadka mataqaanaa caalamka kale ka gado culturalkeeda maadaama Hindiya seen ognahay waa dawladda koowaad ama dawladda labaad ee caalamka ugu dadka badan uguna diimaha badan marka waxay rabtaa in ay caalamku wax badan ka ogaado xiriirka kala dhaxeeya Hindiya iyo caalamka kalena uu wanaagsanaado marka sidaa daraadeed iyadoo ka duuleysa dawladda Hindiya waxay propose gareysay ama soo saartay scholarship-kan walow uusan ahayn scholarship-ka kaliya ee Hindiya bixiso laakiin waa kan ugu macquulsan oo markii loo eego scholarship-yada kale waa half scholarship ama ma dhamaystirna laakiin ICCR waxa ku arkaysaa inuu full scholarship yahay oo ardayga baahidiisii oo dhan la daboolayo scholarship-kan loogu talagalay dadka ajaanibta wuxuu isugu jiraa xilliyada kala duwan ee waxbarashada sida undergraduate ama bachelor waxaan u naqaanaa baccalaureate carabi lagu dhaho iyo qaybta postgraduate oo ah diraasaad culiya waxbarashada sare waxay noqon kartaa master degree ama PhD ama doctoral program haddii aad tahay arday iskoolkii hadda soo dhameeyey waad u qalantaa inaad scholarship-kan soo xirayso waana heli kartaa haddaad tahay arday sidoo kale Soomaaliya ama meel kale ka soo dhameeyey
kasoo dhameeyey bachelorkiisii waxaad soo xirayn kartaa master oo sidaan aniga iyo cabdiqaadir iyo cabdirashiid ba ugu nimi baad ugu imaan kartaa sidoo kale haddaad tahay arday master degree haysta oo PhD inuu xireeyo raba sidoo kale waa soo xirayn kartaa markii laga yimaado saddexda level ee waxbarashada waxaa jira koorsyo dheeriya oo ay dowladda Hindiya bixiso oo ICCR hoos taga koorsadaana waxaa ka mid ah sida dhaqanka Hindida dansiga waxyaabahaas oo dhan Hindiya seen ognahay aflaamta iyo dansiga iyo culturalka aad bay rich ugu tahay marka waxaa jira dowlado aad u interest gareynaya inay cultureka Hindiya wax ka ogaadaan dowladahaas oo kalena waxa la siiyaa koorsaadka khaaska ah ee ku saabsan sida samaynta filimada culturalka dancingka hirid waxyaabahaas oo dhan scholarship wuxuu isugu jiraa saan hore u sheegnay saddexda baarti afarta baarti uu isugu jiraa undergraduate oo ah bachelor degree waxa laga rabaa inaad ku dhamaysid ama ICCR ama dowladda Hindiya ku ogolaanaysaa 3 sano ilaa 4 sano koorsyo waxaa jira 3 sano sida koorsada BBA-da oo kale business administrationka koorsyo waxaa jira 4 sano wax ka badan koors ka badan dowladda Hindiya undergraduate ahaan kuma ogola inay ku fangarayso marka 4 sano ilaa 3 sano koors gaaraya waa inaad doorataa sidoo kale postgraduate markaa tahay koorska waa inuu yahay oo 2 years ama 2 sano PhD-da sidoo kale waxa la ogol yahay ilaa 3 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa inaad ku dhamaysid PhD-da ama doctoralkaaga haddii lagu soo aqbalo PhD waa inaad ugu yaraan aad 3 sano kusoo dhamaysaa PhD-daada ilaa 5 sano uu kula gaari karaa haddii programkaaga ama projectiga uu aad u ballaaran yahay 2 sano dheeriya waa lagu sii fangarayn karaa laakiin wixii 5 sano ka badan PhD waa inaad iska bixisaa noloshaadii iyo wixii oo dhan scholarship waa laga joojinaya sidoo kale waxaad soo codsan kartaa koorsooyinka khaaska ah oo ay ka mid yihiin dhaqanka culturalka luqadda Hindida waxyaabahaas oo kale waxaan maleynayaa cid dowladaha Afrika cid xiisaynaysa ma jirto aan maleynayaa dhaqanka Hindida inuu wax barto laakiin dowladda xiisaynaya way jiraan haddaynu isla eegno slide-ka ku xiga oo ah eligibility criteria ardayga lagu xulanayo waxaa ka mid ah number 1 waxyaabaha qofka ardayga ama qofka scholarship-kan soo apply gareynayo lagu xulanayo inaad tahay arday ajnabi ah oo aan Hindi ahayn waa inaad foreign national tahay ardayda Hindida way jiraan scholarship ay dowladda siiso laakiin kan kama mid aha marka qodobka koowaad waxa weeye inaad tahay arday foreign ama ajnabi ah oo aan dhalashada ama jinsiyadda Hindiya haysan waa inaad tahay taasna waxaan maleynayaa dhamaanteedba waa ka soo bixi karnaa sidoo kale waa inaad tahay dowladaha ay Hindiya ama ICCR scholarship loo ogol yahay ilaa 180 dowladood baa loo ogol yahay Soomaaliya Djibouti Kenya dowladaha in baasaboorada sidoo intooda badan waa loo ogol yahay programkan sidoo kale waxa laga baahan yahay inaad yani academic ahaan ama aqoon ahaan levelka yani abuuxisa requirement-ka course-ka aad dalbanaysid waxa jira koorsooyinka qaarkood waxay leeyihiin requirement si gooniya ama policy ay jaamacaddu ugu tala gashay policy-ga waa inaad marka course-ka xulinaysid waa inaad gashaa website-ka jaamacadda waa inaad sii gashaa faculty-ga aad ka rabtid policy-ga ama requirements kale isaga baahan yahay hadday tahay grade hadday tahay English waa inaad ka soo baxdaa waa inaad intaadan apply gareyn og tahay jaamacadda aad codsanaysid course-ka aad ka codsanaysid wax requirements oo gooniya miyaa loo baahan yahay mise looma baahna haddii loo baahan yahay waa inaad soo buuxisaa shuruudaha sidoo kale waa inaad academic record fiican leedahay waxaa laga wadaa intii hadda soo codsatid postgraduate ama master degree oo kale waxaa loo baahan yahay inaad qof waxa weeye bachelorkiisii natiijo fiican ama record fiican kusoo baxay waa inaad tahay haddaad soo codsanaysid bachelor oo hadda jaamacad bilaabaysid wax laga rabaa secondary oo kale inaad natiijo fiican haysato ma jirto yani natiijo ama grade lagu xirayo laakiin inta badan siday sheegaan waa inaan 60% waa inaan ka hooseeyo waa inaad 70 80 90 meelaha keenta sidoo kale waxa laga rabaa Englishda inaad ku fiican tahay luqadda Ingiriisiga waayo waxa wax ku baranaysid waa luqadda Ingiriiska ama dadka kula tacaamulaysid inta badan shardi ma aha inaad IELTS ama TOEFL ama Duolingo haysatid laakiin waxa shardi ah haddaad haysatid way ku caawinaysaa application-kana markii aad xiraynaysaa waa arki doontaan waa laga rabaa inaad mataqaanaa Englishka ku fiican tahay laakiin adi muhiimaddu waxa weeye in aad mataqaanaa luqadda Ingiriiska heer fiican ugu yaraan wixii lagu sheego ama waxaad maqashid ama galaaska markaad soo fariisatid aad fahmi kartid sidoo kale shuruudda eligibility criteria waxaa ka mid ah shuruudda la iska rabo ardayga codsanaya postgraduate ama undergraduate bachelor ama master ardayga codsanaya da'diisu waa inay u dhaxaysaa 18 ilaa 40 haddaad 40 kan weyn tahay master iyo baccalaureate ama bachelor degree ma xiraysan kartid haddaad laakiin mataqaanaa u dhaxayso da'da ranjiga 18 ilaa 40 intana badan waxaan maleynaynaa da'daas oo dhaxaynaa oo geli karnaa oo ka faa'iideysan karnaa sidoo kale haddaad PhD rabtid inaad mataqaanaa soo xiraysid waxa laga baahan yahay da'daadu ilaa 50 sano inay gaarayso 50 wixii ka weyn PhD ma soo xirayn karo haddaad baranaysid koorsada sida Hindiga Sanskritka artiska dansiga waxyaabahaas iyada wax age kuma xirna
oo dowladda Hindiya maadaama ay faa'iido ugu jirto in dhaqankeeda dad kale xambaaraan yani wax age ama wax yani requirement aad u adag oo lagu xiray ma jiraan sidoo kale criteria-da waxaa ka mid ah marka xireynaysid ama processka la isku dooranayo waxaa ka mid ah inaad grade fiican haysatid transcript inaad haysatid transcriptiga waa garanaysaa inaad transcriptigaagii PDF ku haysatid lagama rabo inaad mataqaanaa gacanta ku haysatid markaa xireynaysid laakiin waa inaad PDF ahaan ku heli kartaa sidoo kale waxaa lagaa rabaa inaad dokumentiyada academic documentska dhan hadday tahay dugsigii sare hadday tahay koorsaad dheeriya waxyaabahaas oo dhan inaad mataqaanaa marka hore soo diyaarsatid ardayga ama applicantiga grade fiican haysta ama yani bachelorkiisa oo kale grade fiican ku baasay wuxuu leeyahay yani jaanis aad u sarreeya buu leeyahay in la doorto sidoo kale haddaa PhD codsanaysid waxaa looga baahan yahay research proposal inaad diyaarsan oo qeexan inaad la timaadid baa loo baahan yahay koorsooyinka qaarkood waxay leeyihiin interview waa inaad mataqaanaa interviewga geli kartaa jaamacadaha qaarkood sida aniga ugu dhacday oo kale 5 jaamacadood baa codsanaysaa 5 jaamacadood qayb ka mid ah waxa laga yaabaa interview inay ku ballamiyaan waa inaad marka u diyaar garowdaa interviewga jaamacadaha qaarkood waxaa laga yaabaa jaamacaduhu intooda badan inayba interview ku weydiin laakiin way dhici kartaa ani 2 jaamacadood oo ka mid ah 5 jaamacadood interviewga iga qaadeen jaamacadda aan hadda dhigto se wax interview ah igamaysan qaadin marka waa inaad diyaar u tahay mar walba interview in lagaa qaadi karo oo lagu weydiin karo course-ka aad baranaysid ama bachelorka aad kusoo baratay haddaa master rabtid waa inaad su'aalaha ama koorsaadka mataqaanaa koorka u ah waa inaad wax ka garanaysaa ama mataqaanaa waxa weeye ilaahu beerka been wixii lagaa weydiiyo aad ka jawaabi kartaa adqaar hore u soco slide-ka xiga application-ka waxa review garaynaya laba jiho baa laga review garaynaya application-kaaga ama laga soo approve garaynaya waa dhanka ICCR-ta iyo dhanka jaamacadda markaad xareysid application-ka ICCR dokumentiyadaada dhan transcript-kaaga waxaaga dhan waxay u diraysaa 5 jaamacadood gooni bay kula soo xiriirayaan Gmail bay kusoo dirayaan haddii ay jaamacadaha laba ka mid ah ama mid ka mid ah ay kusoo siiso admission ay kusoo siiso waxaa lagaa rabaa step 1 baa ka gudubtay step 2 baa loo gudbayaa oo ah in ICCR iyaduna ay kusoo siiso approve marka haddii aad dadka qaarkood waxaa dhici karta inaad jaamacaddii ka haysatid admission oo aad admissionkii jaamacadda aad haysatid laakiin ICCR maqolii bixinayay scholarship-ka India inaysan mataqaanaa ay kugu dhagaan oo kale ama aysan ku siin baa laga yaabaa scholarship-ki marka muhiim maaha jaamacaduhu keliya inaad admission ka haysatid waxaa muhiim ah inaad labada dhinacba aad kasoo baxdid sidoo kale admissionku wuxuu ku xiran yahay criteria-da jaamacadda u degan waa aniga ku yidhi markaad application-ka xiranaysid jaamacadaha 5 jaamacadood waa inaad website-yadooda mid kasta gooni u gashaa course-kaaga kasii gashaa waxay kaaga baahan yihiin waa inaad soo ogaataa intaadan xirayn laakiin selection-ka ugu dambeeya iyo doorashada ugu dambeeya waxaa iskale ICCR baa iskale waxaan rajeynaynaa slide-ka xiga Cabdiqaalid inaad tegtid faa'iidada laga helayo scholarship-kan oo ugu muhiimsan oo mataqaanaa aan hadda ku dhiirigelinayo dhalinyaradu inay soo apply gareeyaan waxa weeye qodobada tan ugu muhiimsan number 1 waxaa lagu qabaa tuition fee-ga jaamacadda course-kaaga tuition fee-giisii oo dhan oo lagu qabaa ama course-ka lacagtii course-ka kaaga bixi lahayd programkaaga hadduu master yahay hadduu bachelor yahay hadduu PhD yahayba jaamacadda waa la siinaya jaamacadda free maaha waxaa siinaya lacagta ICCR baa siinaysa sidoo kale waxaa lagu qabaa examination fee jaamacadaha Hindiya imtixaanaadka lacag baa la iska qaadaa ama jaamacadaha dhan sidoo kale ICCR baa qabta adigu ma bixin doontid waxaa lagu qabaa sidoo kale monthly stipend bishii waxaa laga yaabaa in gunno lacag lagu siiyo ICCR say u badan tahay gunno lacaga oo kugu filan oo ku noolaan kartid Hindiya in lagu siiyo baa laga yaabaa gunnadaas waxyaabo badan bay isugu jiri kartaa life expenses-kii kharashaadkii nolosha hostelkii ama independent house banaanka haddaad degaysid waxaas oo dhan waa ku bixin kartaa sidoo kale accommodationkii meesha aad degaysid oo kale waa lagu qabaa waxaa sidoo kale waajiba inaad haysatid insurance ama caymis marka Hindiya timaadid waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga rabo inaad mataqaanaa ka soo baxdid ama xareysatid waxa ka mid ah si lacaga benefits-kaas oo dhan aad u heshid ama faa'iidooyinka iyo stipend-ka lagu fasaxo waa inaad insurance ama caymis haysataa sidoo kale waxay ku qabtaa ICCR ama dowladda Hindiya haddii aad scholarship kusoo guuleysatid waxaa lagu qabaa ticketkii iyo fiisaha wax lacag kama bixin doontid sidoo kale ticketka Hindiya aad ku tegi doontid iyo ticketka aad Hindiya kaga soo laaban doontid marka jaamacaddaada dhamaysatid wax lacag oo adiga ka bixinaysid jeebkaaga ah ma ay jiri doonto marka faa'iidooyinkaas oo dhan baa lagu qabaa tegitaankaaga Hindiya ka soo laabashadaada Hindiya waxbarashadaada Hindiya waxaas oo dhan waa lagu qabaa wixii dheeriya haddii aad xanuunsatid oo kale haddaa u baahatid course dheeriya jeebkaaga adaa isdabariya laakiin nolosha Hindiya wax kugu filan iyo waxaa ku noolaatid kiradaadii guriga noloshaadii caadiga ahayd normal life-kii wax oo dhan waa lagu qabi doonaa insha Allah haddii aad ku guuleysatid scholarship-ka ICCR koorsooyinka aad codsan kartid waxaan u maleynayaa waraaq koorsooyinka ku saabsan iyo jaamacad walba
koorsooyinka ku fiican tahay groupkan soo geliyey waa ka akhrisan kartaan laakiin hadda haddaan iska sii dul maro koorsooyinka sayniska oo dhan waa soo apply garayn kartaa way ku jiraan engineering oo kale qaybihiisa dhan haddii civil tahay electrical tahay haddii telecommunication tahay mechanical kulli waa ku jiraan ardayga soo codsanaya science iyo engineering waa inuu marka hore ku fiican yahay ama dugsigiisii sare ama bachelorkiisii waa in physics oo kale chemistry oo kale xisaabaadka mathematics sida calculus oo kale wax ka yaqaana oo uu soo dhigtay sidoo kale koorsooyinka humanityga iyo social science-kana waa oo dhan inta badan waa ku jiraan koorsooyinka aad codsan kartid koorsooyinka dheeriga waxaa kamid ah Indian performance art yoga waxyaabahaasna oo koorsooyinkii aan sheegaynay ee aan ku xirnayn wax ay management ama MBA oo hadda Cabdikhaaliq baa inala jooga oo MBA ah iyo arday kale oo Soomaaliya dhigatay way jiraan iyana waa koorsooyinka waxa weeye ICCR ay bixinayso ama aad soo codsan kartid su'aal baa jirta la isweydiiyo ah medicine ku jira waxaan malaynayaa medicine ICCR kama mid aha laakiin koorsooyinka kale caafimaadka sida public health nursing pharmacy kulli waa ku jiraan oo waxay soo isgelayaan qaybta sayniska halkan waxaa ku qoran dateska ama processka ICCR scholarship laga bilaabo maalinka uu xirmayo laga bilaabo maalinka uu processkaagu soo gabagaboobayo sideedaba ICCR la iskuma daaho February buu furmaa hadda sanadka wuxuu furmay 20kii February buu application-ka furmay laga bilaabo 20kii February ilaa maantada tan aan joogno waa xireysan kartaa ilaa 30ka April waa xireysan kartaa wixii loo gaaro 30ka April application-ku waa xirmaya waxa laga rabaa inaad waxa weeye ka hor 30ka April aad soo xireysid dhamaadka bisha June ama bisha 6aad dhamaadkeeda waa waqtiga loo asteeyay jaamacadu inay ardayga soo ogeysiiyaan ama ICCR soo ogeysiiyaan inay ardayga soo aqbaleen shantii jaamacadood inay ardaygaas siiyeen admission ama inay soo reject gareeyaan waa xilliga ay ICCR kala ogaanayso si loogu gudbo phase-kii labaad oo ah in dee safaaradii iyo fiisihii iyo tigirkiisii iyo processkii labaad si loogu gudbo bisha June dhamaadkeeda wixii loo gaaro jaamacadda waa ogaan kartaa admission inaad jaamacad ka haysatid iyo in kale sidoo kale bartamaha bisha July bisha 7aad waa xilliga ay go'aaminayso ICCR scholarship allocation saan soo sheegnay 180 dawladood ilaa 3,000 oo arday baa ICCR scholarship soo hela dawlad walba waxay leedahay qoondada dawladdaas waxay ku xiran tahay sida ardaydaas dawladda u soo apply gareeyaan xiriirka Hindiya iyo dawladda kala dhaxeeya waxyaabahaas oo dhan bay ku xiran tahay marka waxa loo baahan yahay bisha July wixii loo gaaro hadii ICCR ay allocation-ka kugu soo darto waxay u badan tahay scholarship-ka inaad ku guuleysatay oo heshay bisha July dhamaadkeeda waxaa lagu siinayaa wax la dhaho hadii aad admission soo heshay bishii June dhamaadkeeda July bartankeedina aad ku jirtay allocation-ka ICCR qoondada dawladda la siiyay ee ICCR ku jirtay July dhamaadkeeda wax lagu soo diri doonaa wax la dhaho offer letter ama waraaq offer oo lagu soo bandhigayo scholarship-ka inaad soo aqbashid waraaqda offer letter-ka waqtiga ugu dambeeya ay soo dirayaan waa bisha July August wixii loo gaaro round 1 ardaydii yani qaybtii koowaad ama roundkii koowaad yani hawshoodii waa loo dhameystiray oo waxay noqonaysaa first round in ardaydaas admissionadoodii heleen offerkii ICCR-na heleen intii ka soo gudubtay labada process waxay geli doonaan August wixii loo gaaro waxa geli doontaa hawshii visa iyo tigirka waxaana u soo xiran doontaa dhanka iyo Hindiya for example Soomaaliya waxa loogu talagalay 30 arday ama 50 arday sanadkan ICCR scholarship la siiyo kotankii waxa laga yaabaa waxa soo helay oo labada step ka soo gudbay 20 arday 30 boos baa wali banaan 30ka boos waxay ku khasban yihiin inay round labaad furaan oo ardaydii ku soo xigtay admissionada haysay ICCR ay markii hore ay ka tagtay in dib loola soo xiriiro bisha August dhamaadkeeda wixii loo gaaro waxa bilaaban doona last round ama round 2 ba bilaaban doona roundkii labaad baan ku imi oo first round August ardaydii Soomaalida team kuma jirin processkay wuxuu bilowday wixii loo gaaray bisha September buu bilowday oo roundkii labaad baan ku jiray marka ICCR labada round bay leedahay waxaana saan soo sheegnay waxaana qasaba inaad mataqaanaa labada process ama labada round waana ka soo gudubtaa labadan isoo qabo jaamacaddu waa in admission ku siisaa ama laba jaamacad ama hal jaamacad admission waa inaad ka heshaa markaad admission soo heshidna waa in ICCR allocation-ka kugu soo dartaa ardayda dawladda sanadka loo xushay inay scholarship-ka soo helaan waa in lagu soo daraa haddii lagu soo dari waayo round 1 dawladda numberkeedu uu isdhimo waxa laga yaabaa in round 2 ilaa August ilaa September lagu soo daro waxa laga yaabaa marka in dadaal laga soo qabto marka ka quusan aniga hadda waan ka quustay markii la soo qabanayay bishii October baan Hindiya imid walaal aan soo dahay jaacad ka soo dahay laakiin ardayda Soomaalida round 1 ku soo baxday aad bay u koobnaayeen round 2 baa markii lagu soo daray saasaan Hindiya ku dhimaanay marka waraaqdaas waxay sheegaysaa hadda dateska waa inaad sideeda u garanaysaa ama la socotaa bisha June wixii loo gaaro
وانا admissionada sugtaa bisha July hadii admission lagu soo diri waayo ilaa July waxay ku xiran waxay ka dhigan tahay inaan admission helin haddaan admission helin ICCR already kuma ay san qaadan ama yani uma gudbiysid marka waxaan u baranayaa halka wixii loo gaaro waxa ka sii bilaabi doona engineer Cabdirashiid oo kusoo dhaweyn doona intaan engineer Cabdirashiid kusoo dhaweyn waxaan kusoo dhaweynaya Cabdikhaalid oo ah xiriiriyaha barnaamijka si uu soo dhaweeyo walaalka Cabdirashiid Cabdikhaalid kusoo dhaweey